shirkan runtii wuxuu ahaa mid ay ka soo wada qayb galeen dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha ammaanka oo ay ugu horreeyeen wasaaradda amniga, taliska ciidanka booliska ee gobolka Banaadir, maamulka gobolka Banaadir uu hogaaminayay duqa magaalada Muqdisho iyo madax ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaarahana runtii shirkan wuxuu u shir gudoominayay sidii loo dardargelin lahaa amniga caasimadan magaalada Muqdisho, iyadoo aanu ognahay maalmihii u dambeeyay in ay socotay barnaamij lasla dhexgelinayay shacabka iyo qaybaha kala gedisan laamaha amniga, iyadoona nambarka 991 uu ra'iisul wasaaraha muddooyinka ugu dambeeyayba xoogga saarayay sidii ay shacabku ula soo xiriiri lahaayeen qaybaha amniga, isla markaana ugu wargelin lahaayeen wax walba ay u arkaan in uu amni darro ku yahay magaaladan caasimadda ee Muqdisho, iyadoona qaybaha kala gedisan ee amniga ay u suura gashay in falal fara badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortagaan iyagoo shacabka kaashanaya. runtii shirkan wuxuu ahaa mid lagu sii dardargelinayay qaybahaasi kala gedisan, ra'iisul wasaarahana uu u gol lahaa sidii laamaha amniga, maamulka gobolka Banaadir iyo shacabkaba ay wada shaqeyn dhab ah oo buuxda ay u wada yeelan lahaayeen.